kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn 1,000 dirham 1,000 diinaar wuxuu lacagta hanku amahiye xadiiskunaas waa saxiix hanku amahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raaca lacagtaydii kafaa billaahi wakiila ilaahay baad u raaciyo iga wakiila buu yidhi markaasuu wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad dadda u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam kolkay gabbalkuu sii dhacayo haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimkaa maalintaa lacagta uu idayminayey marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancee ilaahow maanta aniguna waa anigaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayoon la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaan noo dhexeeye warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey maro kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray kam masaafada inta u dhaxaysa laa nadri intay tahay laakiin siduu doono yeela waayo innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahayda waxaa ka dhiganaa fuday maxaa nolosha nagu adkeeya maanta qof kasta maanta la fadhiisoo muslima uu cabanaya madaxdu way cabanayaan oo shacabkay ka cabanayaan shacabka muslimiinta way cabanayaan madaxdooday ka cabanayaan aabbuhu uu cabanaya inankuu ka cabanaya inanku uu cabanaya aabbihii buu ka cabanaya inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarkuu ka cabanaya qaraabadu qaraabaday ka cabanaysaa qof kasta waraysa waa kaase wuxuu ku leeyahay xaqaygii baa iga maqan xaqaaga ilaahay ka qaado xaqa bini aadamka laakiin iska ilaali tu'adduuna xaqa aladii calaykum watas'aluuna allaha aladii lakum baa nebigu saxaabada markay weydiiyeen madaxdu hadday xaqayga qaataanna balka warran markaa buu nebigu yidhi xaqay nagu leeyihiin ininku u gudo iska ilaaliya xaqiina ilahay baa ka qaadi doonay buu rasuulku yidhi ninkan inuu xaqa iska ilaaliyo halka u yimiday qorigiibuu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaggii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doonoo soo socotay iyo markab ayuu yidhi bal qoriga yaree badda dul socda maad iska qaadatidood reerkaagii xabaha uga dhigta dacaawo ajajabsadaan kolkuu qaaday reerkii buu u geeyey oo u jajabiyey warqaddii baa ka soo baxday oo kala furay lacagtoo sideediiya yaa soo gaadhsiiyey ilaahay baa soo gaadhsiiyey innaku waxaan moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyutar adduunyada ku socoto waxay adduunyadu dowlada sameeyeen caalamka nidaamka ilaahay buu ku socdaa una ku socon jiray una ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta awaya qisaskaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla ka cabsi iyo diin iyo taqwada innagana maanta waxaa laynagu qufulay salaadu manfacadeedu qabriga ku sug adduunyadan shaqa wax ku haysa shaqo waa ka dhallinyaradeenni badaha ay ku dhammaadeen badaha saxraag ay ku dhammaadeen beri dambe labadii nin is arkeen uu ku soo boodo u calacalay iga raalli ahow maalintaa baddii waan imid oo waxaan soo raacaan waayey hawalwelin hawalbahaarin ilaahay maragga aad ka dhigateed kafiilka aad ka dhigatay ayaa ammaanadii kaa soo gudayoo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yidhi isla maalintiiba way soo gaadhay lacagtii
qisaskaas waxaa laynoogu sheegayaa qaar qur-aanka ilaahay ku sheegay qaar nebi maxamed axaadiista saxiixa inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxau nebigu inaga doonayaa oo nebigu inala doonayaa inaan noqonno kuwa rabbaaniyiina walaakin kunuu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa uu arkayo un aaminsan kaa maadi baa la dhaha maadi waxa uu arkayo un buu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nebigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilaahay nebigu ay sheegeen marka inaan camalkeenna hagaajisanno adduunka laynoo keenay wallaahi camalka haddaan hagaajisanno nolosheenna ilaahay baa hagaajin cumar ibn cabdilcasiis raxmat ullaahi calayh maalintuu dhimanaya xoolihiisii oo dhan u bixiyey waxaa lagu uhi ciyaalkaagii waad kaga tegtee faqri baad kaga tegtee wuxuuhi ciyaalkayga diin baan baray buui ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shareecadda islaamkaan baray oo xidhiidhka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiin saalixiintana ilaahay baa tawalliyey buuhi arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buui ciyaalkayga waayo ilaahay baan baray buui ilaaha hanigaan ku xidhay buuhi ubadkayga haddaan uga tega xoole buuhi dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad uga timida xoolaha ay ku tumanayaan la odhan maayo buui kulligood baa laydhi maalintuu dhimanaya waxba ugama tegin laakiin kulligood wada akhniyaa baa ilaahay ka dhigay kaana diin baa la baray